yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii ilaahay rumeeyow idaa nuudiya lisalaah marka salaada loo dhawaaqa min yowmi aljumuca maalinka jumce fascaw u degdega ilaa dikri illaah ilaahay xuskiisa wadaru lbayc iibkana iskaga taga daalikum khayrun lakum taasaa idin wanaagsan in kuntum taclamuuna haddii aad garanaysaan faidaa qudiyat isalaa marka salaada la dhammaystiro fantashiruu fi lard dhulka ku faafa oo dhulka socda wabtaquu min fadli illaah ilaahay dheeraadkiisa iyo arsaaqadiisana raadiya wabtaquu raadiya min fadli illaahi ilaahay dheeraadkiisa u idiin qoray oo shaqo taga wadkuru llaha kaiiran ilaahay xusa in badan lacallakum tuflixuuna si aa u liibaantaan sidaas weeye ummaddii islaamka ahayd baa ilaahay u yeedhay dee kuwaa diinla'aan baa ku dhacdoo lagu halaagay idinku diinta ilaahay ooga wey oo kolkii hore ilaahay kitaabu idinku mana sheegtay kitaabkii dhaqangeliya waxyaabaha ugu weyne lagu dhaqangelinaya shacaa'irka waaweyne cibaadada salaada ka mid ah weliba ta ummadda aad u sii ururisee jumcada ka mid ah marka jumcada in laga yaaco laga firdhada iska daayo oo sidan u ooga aayaadku sababtoodu horeynuu soo sheegnay ama sababtooduba waxay ahayd nabiga calayhi salaatu wasalaam isagoo u khudbadaynaya asxaabta oo mimbarka ku taagan sida qur-aanka ilaahay uu ku tilmaamay ayaa lagu soo dhuftay ayaa safar baa soo socda oo madiine soo gelaya shaam buu ka imanayaa calaamad bay u samayn jireen safarka had iyo jeer marka uu soo galayo durbaanaa la soo garaaci jiray baahi loo qabo raashinkaa la sida iyo badeecaddaa daraaddeed durbaankii baa lagu soo dhuftay dadkuna miis bay isaga baahnaayeen raashinkuna sibuu isaga goonaa safarku dee kii la sugayay buu ahaa dad badan baa hayn waayey inay fadhiyaan halkan inta jumcada la dhammaynayo oo kaba fikiroo laysidhi waxay isidhaahdeen inta jumcada aan la dhammayn armu raashinkuba dhammaadaa ilaan kii inkaarta qaba iblaysta waa ku lifaaqan yihiin dadka oo kuwuu ku ladhanyo uu la socdaa nin walba dhegtu u saara wuxuu ihi ma laga yaabaa intaad sii fadhido in laguba kala tago dee waaye aan ka gaadho aba la dhaqaajiyeyba 12 asxaabi unbaa ku soo hadhay abubakar iyo cumar baa ka mid ahaa labadiisii wasiir dabeedna ilaahay aayaadkan iyo kuwa ka dambeeyuu soo dejiyayoo jumcadii iyo miisaanka ay muslimka dhexdiisa ku leedahay ayaa halkan ilaahay ummadda kula hadlay dadkii mu'miniinta ahaa ayuu ilaahay u yeedhay markaasaa wuxuu ihi dadkii mu'miniinta kolka salaada jumcada loo dhawaaqo waa dikrigii ilaahay u degdegoo bacmushariga iska daaya taasaa idiin fiican wakhtiga salaadu ay dhammaatana waan idiin fasaxay shaqo taga ugu horrayn markaa waxaa laga faa'iidaysanayaa halkan jumcaha u yeedhidiisa loo yeedho dadka waa adaankii weliba labada adaan waa ka dambe ilaan kan hore wakhtigii rasuulka ma jirin ee wakhtigii cuhmaan baa la jideeyey inkastoo mashruucuu yahaysta marka kaa dambe ayaa uu ku xaaraantinimoobaya iibku iyo wax alla wixii la wado ee dhaqdhaqaaqa mar haddii jumcada loo dhawaaqo maalinka jumce ilaahay dikrigiisoo salaadiiya u dhaqaaqa dikrigaas waa salaadii ila salaadu dikri un bay ka koobanta innamaa hiya tasbiixun wa taxmiidun wa takbiirun wa qiraa'atu lqur'aan waa dikrigii ilaahay wadkur rabbaka idaa nasiit ilaahay u tuko wakhtigaad markaad ilowda wakhtiga aad xusuusato u tuko fascaw ilaa dikri illaahi wadaru lbayc labadaasaa ilaahay u israaciyey in loona degdego lana daayo iibka wakhtigaa wax la kala iibsadaa waa xaaraan waana la isla waafaqsan yahay culimmadu waxa ay isku khilaafeenuun iibkaasi xaaraan ha ahaadee ma ansaxayaa mise ma ansaxayo qayb badan baa waxay ku tegeen dee kol hadduu xaaraan yahay siduu ansixi waa xaaraanaan ansaxayn qaarkoodna waxay leedahay xaaraan wiyoo dembi waa lagu dhacay laakiin wuu ansixi labadaa qowlun baa jira mooyaane laakiin inuu xaaraan yahay iibka wakhtigaas hadday hudheel tahay iyo haddii ay tahay meherad bagaash iyo haddii ay tahay biyo meel laga cabayo isku wada dar wakhtigaa la iibin maayo wadarulbayc amar baa dhacay ka dhaqaajiya iibka baa ilahay wey tan hore fascaw ilaa dikri illaah sacigani kii orodka ahaa ma ah waman araada alaakhirata wasacaa laha sacyaha wa huwa mu'min qofka aakhiro doone u saciya waa u camal falown inna sacyakum la shataa waa laysa lilinsaani ilaa maa saca
sacyigani waa kii camalka ahaa marka waa kii degdeg ahaa degdegii damiirka iyo qalbiga iyo tabaabushaha cibaadada in loo ordo waabu diidayba rasuulku sala allahu calayhi wasalam salaada marka lagu sii socdo waxa uu lahaa ha ordina marka aqiimidda maqashaan si degganaanshale u tallaabsada oo qofku inuu ninweynimada ka taga maaha ila ilaahay boqorkaabuu ishortaagayaa oo la faqayaa isagoo hiinraagaya maaha inuu ilaahay ishortaago adabtaa ka xumaanaysa isagoo khushuucsan waa inuu ilaahay ishortaagaa qof mas-uulayood imika la faqaysa ama muraad u leeday adigoo xiiqsan oo neeftuuraya kuma wanaagsana inaad hor tagto ilaahayna maxaad u malaysa subxaana wa tacaala marka taa waa la diiday laakiin sacyigan ilaahay u leeyahy dikriga u degdega waa arrinta la xidhiidha u dhaqsada hawlaha kala dhiga iibkana iska daaya dee yaa ujeedaba jumcadii oo lagu jiro khadiibkii khudbadda akhriyayo salaadii uu akhriyayo ayaa masaajidka hareerihiisii dee ummadda meesha ku jirtaba 10 jeer ay ka badan yihiin kuwa bannaanka taagan dabeetna waxaad moodaysaa inay meeshuba tahay aqaliyad islaam inay ku nooshay dadka islaamka ana in lagaga badanyo ummad kaleba meesha ku nooshay ayuu qofku moodayaaba wadamadii aqaliyaadka islaamku ay ku noolaayeen baaba loo malaynayaaba caalam kale ay dad ku jiraan mid le uu soo dhacayay 4 5 iyo mid kale isaguna la ka gaarsiibay inta kuwan ay ka mashquulsan meheradaha ka xidheen maya arintaas waa taa weeye jumcadana waqtigii jaahiliyada waxba la kala iibsan jiray dadku way isu iman jireen oo yawmul uruba baa la oran jiray wuxuu nabi maxamed tilmaamay calayhi salaatu wasalaam yoomkan fadligiisa markuu ka waramayay inuu yahay yoom hore loogu bandhigay ummadihii hore yuhuud baa loo bandhigayoo waxay dhahdeen ilaahu noo yarkaadi noo yar dibdhig oo xagga sabtida noogu kaxee waxaa loo bandhigay kiristankiioo waxay dhahdeen ilaahu noo dib noo riix oo axadda nooga dhig waataa kaga dhigtay sabtii axad ay ka qabsatay markaasaa ilaahay ummadda islaamka ayuu ilaahay ku hanuuniyey idan natiijada ka soo baxday waxay noqotay innagii baaba hormuud u abuu nebigu calayhi salaatu wasalaam oo dad jumcaha horeeya sabtidii axaduna way daba socdaan naxnu alwaluuna alaakhiruun innagii baa ummadaa u dambaynay haddana uba horaynaba oo xagga jumcada marka leega waa ka horaynaa yoomka aynu weynaynaya ciidda usbuuca jannada gelideedana waa ku horaynaa labada dhanba maalin dheeraadkiisii cajaa'ibtiisa iskale weeye waa aadam arrimihiisaa ku warwareegay maalinka xadiidka saxiixa nebigu wuxuu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam maalinkan inuu ilaahay dhammaystiray abuurkii khalqiga axad ilaa jumce ayuu socday abuurka khalqigu oo aadam baa la abuuray jumcada maalmihii kale waxa la soo abuuray makhluuqaadka kale laakiin jumcada ayaa ilaahay uu aadam abuuray subxaana maalinkaa isagaa jannada la geliyey waana laga soo saaray qiyaamaduna maalinkaasunbay dhacaysa arrimahaasoo dhan jumcaha ayaa iska leh jumcaha dee fadligiisa nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku tilmaamay in si loo helo fadligiisa faraha badan iyo saacatulijaabaha ku jira in waxyaabo badan oo aadaaba lala yimaado salaada faralka ah ka sakow maydhashadii nadiifintii u degdegiddii loo degdegayay masjidka imaamka la dhagaysanayay la aamusayay arrimahaasoo dhammi waxa ay tilmaamayaan maalinkaa isagaa in ihtimaam dheeraada la siinayo oo ciiddii usbuuca loo tixgelinayo oo xataa la diiday soomkii maalinka ah in la soomo ila ciid lama soomee axaadiis badanoo saxiixa ayaa ku soo aroortay oo waxyaabaha ka warramaysa almuhim jumcuhu wuxuu leeyahay baab gaara oo ka warramaya xikmadiisa iyo fadligiisa iyo xukumkiisa iyo aadaabta jumcaha lagu gudanayo iyo camalkani sida u ansaxayo iyo jamaca loo baahan yahay waa baab dhan oo runtii dee kutubta xadiidka iyo kutubta fiqiga qofku ay tahay inuu aada uga daalacdo aayadduna waxay ka mid tahay un axkaamtiisa jumcaha mid ka mida kuwii loo daliishanaya weeye فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون waqtigeenu wuu qaybsan yahay qofka muuminka waqtigiisu waa mid barnaamijaysan oo kala habaysan waqti waa cibaadada waa waqtigii ilaahay waqtina waa xoolaha la shaqaysanaya waqtina ehelka leh waqtina martida leh waqtina maslaxada ummadda caamka laga shaqaynaya saasa loo wadaya arrimo ay u qaybsan yihiin qofka muuminka ah bilaa macna meel uma hayo waqtigiisu wuu ka buuxaa wax la yiraahdo bilaa macne
min xusni islaami almar'i tarkuhu maa laa yacniih. islaamnimada qofka qiimo wanaaggeeda waxa ka mid a wixii bilaa macnaa inu iska daayo. 24kaaga saacadood barnaamijee 6daa waad seexanaysa, inta 18 kale soo hadhayna intaa ilaahay baa leh oo sunno iyo fara loo tukanaya ama diintiisa la faafinaya wax loo qabanaya, intaana ehelkaa leh, intaana ummaddaa leh, intaana shaqadaa leh. sidaa laakiin cunno iyo hurdo iyo hadal uun haddaad u qaybiso wakhtigii oo kii ilaahay iyo kii ummaduba iyo kii diintuba meesha uu ka baxo, dee waa murugo, waa laga murugoonaya. sayakuunu xasratan wa tiratan calayka yowma alqiyaama. markaa ilaahay dadka ma laha uun dee gidaarkaa soo fadhiista oo halkaa ka kicina masaajidka dhexdiisa oo bartaasun ku cibaadaysta oo wakhtiga ilaahay wada siiya lama leh. faidaa qudiyat isalaatu fantashiruu fi lard wabtaquu min fadli illaah. marka salaada la dhammeeyo u dhaqaaqa dhulka gala oo dhaqaajiya, ilaahay fadligiisa iyo arsaaqadiisana raadsada. amarkani waa amrulibaax, sida ka hore waajib ma ah. dee qofkii doonaana wuu iska fadhigi karaa, kii doonaana wuu shaqo tegi karaa, kii shaqadiisa cid u haysa dee wuu iska fadhigi karaa masaajidka. laakiin ilaahay wuxuunu tilmaamayaa mubaax bay idiin tahay, masaajidkii lasii fadhii maayo, waa la shaqo tegayaa. idan markaa dadka muminiinta waxay u taagan yihiin inay diin iyo duunyaba camiraan. diintiina way camirayaan, dalkiina way camirayaan, duunyadiina way camirayaan. adduun iyo aakhiraba islaamku iyaga hormuud ku ah oo lagu dayanaya. fantashiruu fi lard wabtaquu min fadli illaah. marka salafku waxaa dhaqankoodu ahaa inay iyagoo bal amarkaa barakaysanaya ilaahay, waa marka shaqadu ay salaadu u dhammaato nin waliba uu shaqo tegi jiray. ciraaq ibnu maalik ninka la odhan jiray ayaa radia allaahu canhu marka uu salaada had iyo jeer ka baxo ayuu istaagi jiray albaabka masjidka ayuu istaagi jiray. allaahumma innii ajabtu dacwataka wasallaytu fariidatak waintashartu kamaa amartanii farsuqnii min fadlika wa anta khayru raasiqiin. ilaahayow yeedhmadii adaankii waan ajiibo, soo tukado salaadii iyo faralkii dhammeeye, sidii aad i amartay dhulkiina ku soo faafa oo aniga sii dhaqaajinaya. arsaaqadaada iyo fadligaaga ilaahu ii buurbuur oo ii badi buu ku leeyahay, oo marti baan kuu ahaye ilaahu ii barakee. bacdu salaf waxa ay ahaayeen marka uu had iyo jeer wuxuu u jeclaan jiray bacda yowmi aljumuca inuu wax iibiyo oo wax soo iibsado. waxaanu odhan jiray dee barakadaa sidaa ku jirto waa wakhti ilaahay uu fasaxiyo amar ina siiyey inaynu shaqo tagno. almuhim halka waxaad ka arkaysaa dadka muslimiinta ahi ma aha dad quudkooda cid kale ka sugaya, laakiin mana aha dad ummadda wax soo saar ku ah, mana aha dad cadowgooda dawarsado oo gacmaha hoos dhigta sida muslimkii akhiiran qabsatay ama ummadeenniiba ku dhacday. laakiin yactamiduuna cala allahi uma calaa anfusihim. ilaahay bay tala saaranayaan, uma naftooday cuskanayaan. iyagaa isku tiirsanoo wax soo saarkooday leeyihiin oo shaqadooday leeyihiin oo wax samaysashadooday leeyihiin. dad isku tiirsan weeye oo isku filan. fantashiruu fi lard. islaamku waxa uu ku leeyahay siduu axadu saxaaba labadii khaliif mid ka mid ilaa cumar ama cumaan cumar ama abubakar, wadadii shaqo taga ina samaa laa tumdiru dahaban walaa fida. shaqo tagoo nin walbaba shaqo tag, samada ka sugi maysaan dahab iyo lacag inay soo da'do sida roobka ah. qof walba shaqo tag. bal ummaddaa waxaa haystee gobonimo diradu wuxuunay ka timaadaan wax qabsi la'aanta. dadku markay waxba qabsan waayaan dee qofkii kudkuda maaha wuu u baahan yahay, kharash buu u baahan yahay. idan markaa muxuu yeelayaa? dee waa inu dadun culays ku noqdo, dadunbuu culays ku noqonaya ama ehelkiisa ama ummad kale. markaa had iyo jeer dadkana in loo abuuro weeye meeshii ay wax ka qabsan lahaayeen loo raadiyo oo loo jideeyo oo loogu dadaalo. qof kastoo ummadda waxu qabto waxu soo kordhiya ajri weyn buu ka helayaa ilaahay agtiisa, ummadda agteedana ammaan buu ka helayaa. sidoo kale qofkuna marka uu tacabkiisa ku shaqaysanayo ku hawlgalaya cibaado kale ku jiraa. nabigu calayhi salaatu wasalaam waa kale arsaaqad waxa ugu wanaagsantaha uu qofku gacantiisa kula soo baxee uu shaqaysto. ummaddaa faylka wada sidata ee hay-adaha balaayada iyo baaska faafinaya daba socda ee dawarsanaya ee la warbal noo ansix, inamo iyo hablo iyo rag iyo dumar daba socda la warbal ka noo ansix, warba mashruuca noo baaskaree, warbal qamadida nasii, arabakhidan afdheertaa noogu roonow, saliidda nasii. dadka halkaa lihi hadday dhulkooda ay oodayaan ay xoolaha ka oodeen hadhuur iyo arabakhiyo digir iyo khudrad kala soo bixi lahaayeen, iyagaaba adduunyada kale wax u iibgeyn lahaa. laakiin dee waxaa loo baahan yahay maamul iyo shacbiba
istiraatiijiyad hagaagsana ummaddu shisheeyaha ay kaga maarmi karto gobonimo daradana ay kaga bixi karto. carabtu waxay ku mahmaadaan man laa yamliku quutahu laa yamliku qaraarahu. qofkan quudkiisa haysan hunguriga qaraarkiisa ma haysto. caalamul islaami taa aad baa loogala dagaalamaa. masar baa bariyo dhexe waxay isku dayeen inay wax beeraan, niilka biyiisa ay wax ku beeraan. ummadaha shisheeye ee had iyo jeer iska dhiga inay awoodooda ku tiirsan yihiin waxay u waaxyoodeen ku yidhi annagaa idinku filane waxba bahashan roodhida qamadida ka samaynaysan maraakiib baanu ka soo dejinaynaa xabxabkiiyo cudbidun beera kotonka iyo bahalka qaraha la yidhaahdo idinku beer oo tan kale annagaa idinku filan leanna way ka maarmayaan 80 milyan hadday ka maarmaan qaybba caalamkii ka maarantay. marka waxa ay ka duulaan ummadaha shisheeye jawic kalbaka liyatbacka si carabtu odhan jireen xayawaankaaga gaajaysi si uu ku daba socdo. marka ilaa ummaddu ay sidaa diinteennu ay farayso isku filaadaan dunyadooda iyo diintooda mid walba waxba u dhiman oo hagaagi mayso. waxa ilaahay halkan ku muujinayaa haddaad xataa shaqo tagtood masjidka ka baxdo ilaahay ha ilaawin iyadoo lagu yidhi shaqo tag baa ilaahay waxa uu ku leeyahay kii baac mushtariga ahaayow ama kii shaqaynaya gacanta ka shaqaynayayow maxaa la yidhi wabtaquu min fadlilaahi maxaa ku xiga wadkuru allah ilaahay xusa adoo meherada jooga udkurillaah adoo xafiiska jooga udkurillaah adigoo shaarica jooga udkurillaah. laba shakhsiyadood laakiin ha yeelan shakhsiyad muslima iyo shakhsiyad shaytaana. markaad masaajidka joogtan haddaad noqoto nin duub dheer oo maaragtay khushuucdiisu ay aad u badan tahay mar alla markaad halkan ka boodana beenta iyo qishka iyo ribada iyo laaluushka iyo dhan walba aad u rido oo laba shakhsiyadood yeelato dee munaafiq baad noqonaysa. miirqabkaad masaajidka ku joogto muslimka dhexdiisa iyo maamulka iyo xafiiska iyo sharkada iyo shaqadana sidaa ku joog. laba shakhsiyadood male qofka muslimka ah wadkurullah sida ilaahay uu baraarujinaya sida halkan muumin khaalis oo ahay oo ilaahay masaajidka ugu cibaadaysanaya suuqana dacwadii ka faafi oo baac mushtariga wax u sheeg oo runtii iyo amaanadii horseed ku noqo oo ummadda ha khiyaamaynin oo ilaahayna ha ilaawin. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ليبان تساسك وحرنت. وإذا رأوا مركا يركان تجارة باع مشتري أو لهوا نمو دربانا لقراعي انفضوا إليها ويوياعيا وتركوك ويكاتقيا قائما أديقوا تاقن نبي محمد قل وحات إلى ما عند الله إلهي أكتيس خير شنذا كباقيه خير ويكوناك بلنتاي من اللهو وحال قراعي ومن التجارة باع مشتركة والله خير الرازقين إلهي باكوا وحرساقه وحبحيه وخير بدن. markan waa canaan umadii la canaantay duunyadii oo ay u ilaaween diintii bay ka tageen. haddaad baac mushtariga shaqadaada u ilowda diinta waad eedaysanaad la haystaa tahay in lagu maareyn waayana waa suuragal. marka diinta ayaad ilaalinaysaa dunyaduna way soo raacaysaa. shaqadaas ay igu noqoto salaadii baaban haleeli waayay ma soconayso. tijaara iyo lahwi iyo tijaarada muraadkoodu ah lahwigina waa wixii lagu maqlay soo raaca way u yaaceen adoo taagan bay ka tageen. idan markaa waxa halka laga faa'iideysanayaa in ixtiraam uu leeyahay qofka khayrka ugu baaqaya qofka diinku oogaya in la dayaco oo la dhageysan waayo daw umale waa mas'ala fiqi oo kale jumcadu intay ku guntantaa iyo 12 qof bay ku guntantaa iyo cadad ka yar oo kii jamca iyo waa mas'ala kale oo iyaduna faahfaahin dheeraad u baahan. laakiin halkan ilaahay wuxuu tilmaamay diintuna xaq ay lahayd inaanay siinin nabiguna xaq uu lahaa inaanay siinin dadka maalinta ka yaacay bal ka war kuwa iskagaba tagayba لا يعرفون الجمعة ولا الجماعات أن جمعية جمعتون قرن مسلمنا شيغانيا إيديسو maxay noqonaysaa ka iyo inkaartiisu. ilaahay wuxuu tilmaamayaa ilaahay agtiisa waxa ah oo jannada ah oo abaalmarinta ah oo calafkiisa oo haya ah ayaa ka khayr badan waxana ku yaacaysaan lahwiga tijaarada. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. إلهي بقى وحلبا كفر ضامنية كوي مهرد انت هذا وحلنت إلهي درادي وإلهي درادي وحاضو سميساد وحاوغا تكتو ضد ميل كلا كيمي oo arsaaqad ilaahay xambaarsan buu ilaahay isku kiin beegaya wallahu khayrur raasiqiin bushaaradaas ilaahay u sii ilaahay baa u khayr badan cid wax siiso oo wax arsaaqday ilaahay isaga marti u tihiine hasaluugina diintiisana dunya daraadeed ha uga tagina wallahu a'lam.